waxa fasalka soo aadan ee 2024-25 gabi ahaanba la bedelaya qaabka loo ciyaaro Champions League waxaana la kordhinayaa tirada kooxaha oo noqonaya 36 halka ay imika ka yihiin 32 koox kasta waxa ciyaaraysa 8 kulan oo iswada arag ah 4 guri ah iyo 4 dool ah deeto afarta group waxa toos uga soo baxaya min 2 kooxood oo ugu sareeya 16 kooxood ee ku xiga ayaa iyaguna ciyaaraya kulamo kala bax ah ama play-off halkan waxa ka soo bixi doona 8 kooxood oo deeto ku biiraya 8dii hore si ay isugu noqdaan 16 ciyaaraya wareegga bugbaxda ama knockout waxa sidoo kale Champions League cusub in labada dal ay ugu sareeya dhanka qiimeynta loo yaqaan UEFA Co-efficientRanking ay Champions League helayaan min koox dheeraad ah waxaana imika si rasmi ah booska u helay Serie A oo toddobaadkii hore xaqiijisay iyo Bundesliga oo min 5 koox ka heli doona fasalka soo aadan haddii aan dhaqsaha daba u eegno qiimeynta UEFA oo kala ah midda fasalka iyo midda guud midda fasalka waxa koowaad ku jirta Serie A labaadna Bundesliga sida aad shaashada ka aragtaan balse qiimeynta guud ee UEFA waxa sidoo kale horumar ka sameeyay isla horyaalka Talyaaniga ee Serie A oo La Liga kala baxay kaalinta labaad markii ugu horeysay muddo 26 sanadood ah iyagoo awal kaalinta koowaad ay hore uga baxeen kooxaha Ingiriiska ee EPL haddaba aynu sii sharaxno sida ay Serie A iyo Bundesliga ugu suurto gashay in ay min 5 koox helaan iyagoo waliba cariirinaya kooxaha horyaalka qaniga ah ee EPL kooxaha Talyaanigu bandhig ilaa xad niyad jab leh ayay fasalkan ka sameeyeen Champions League waayo AC Milan oo gashay groupka dhimashadu waxa ay ku guul dareysatay inay xitaa groupkaba ka soo baxdo halka SSC Napoli kooxda horyaalka hanatay ee Inter Milan iyo kooxda SS Lazio ay ku wada hoobteen wareegga xiga ee 16aad yeelkeeda haritaanka AC Milan oo gashay Europa League waxa ay Serie A uga dhignayd qayrkii madooba waxaana Rossoneri dhibco dheeraad ah oo muhiim ah u soo xasilisay Serie A sida kooxda Roma iyo sidoo kale Atalanta dabcan kooxda Giallorossi oo hore u raabtay kooxda Milan waxay rajeynaysaa in ay tagto finalka Europa League balse waxa 2-0 ku hogaaminaysa kooxda ay fasalkan u saaran tahay ee Bayer Leverkusen halka Atlanta ay rajeynayso in ay tagto finalka Dublin kadib markii ay garoonkeeda 1-1 kula soo gashay kooxda Faransiiska ee Marseille dabcan kooxda Fiorentina oo walfinaysa calanka Talyaaniga dhinaca Conference League si ay u tagto finalka Athens waxay u baahan tahay in ay guul darro iska ilaaliso marka ay tagto Belgium iyadoo kulankii hore gegada Artemio Frank uga badisay kooxda Club Brugge si kastaba Serie A 5 kooxood ay ka soo xasiliyeen fasal ciyaareedka soo aadan dhanka Champions League waxaana ugu wacan 7 kooxood ee matalayay horyaalka Talyaaniga oo aan midoodna harin markii la joogay bishii December ee dhamaadkii sanadkii tagay dhinaca Bundesliga Jarmanku kaalinta labaad ayuu kaga jira qiimeyn sanadeedkan imika la sameeyay ee UEFA waxay u muuqdeen kuwo ay EPL booska kala bixi doonto kulan kasta waayo Bundesliga waxa horeba u gaaray jugti ahayd in Union Berlin ay ku guul dareysatay in ay hal goolna ka gaarto wareegga gruubyada Champions League halka kooxda Eintracht Frankfurt ay ku guul dareysatay inay dhaafto kooxda Belgiumka ah ee Royal Union Saint-Gilloise oo kulamada kala baxa ah uga soo ciribtartay Conference League intaana dhibkooda kuma harine waxa dhaawaca kooxaha Bundesliga cusba sii marisay markii ay kooxda RB Leipzig ku hartay wareegga 16 Champions League walow ay si wanaagsan ula ciyaartay kooxda Real halka kooxda Freiburg ay gacanteeda ku reebtay kooxda Ingiriiska ah ee West Ham United yeelkeeda waxa meel aan la filaynin ka soo foocay faras caddaha Bayer Leverkusen oo imika qarka u saaran in ay gaaraan finalka Europa League markii ay 2-0 ku soo badiyeen kulankii ay Roma kula ciyaareen Stadio Olimpico waxaa sidoo kale suurtagal ah in mar kale aanu aragno final Champions League oo wada Jarman ah haddii ay soo wada badiyaan Bayern Munich iyo Borussia Dortmund oo kala booqanaya Santiago Bernabeu iyo Parc des Princes waana daban arrin adag in dhammaanba kooxaha reer Bundesliga ee saddexdii ay final wada gaaraan balse Jarmanku horaanba waxa uu xaqiijiyay 5 koox inuu ka helo Champions League fasal ciyaareedka soo aadan taasoo mar kale booleysay kooxaha Premier League balan eegno Premier League waxa ka qaldamay dad badan fasalka kuma xisaabtamaynin jabka soo gaaray kooxaha EPL xitaa kadib markii ay cagasaarta gruubyadooda ku dhameysteen kooxaha Newcastle United iyo Man United oo ka soo wada haray Champions League iyagoo aan xitaa xasilinin boos ay nafta ku sasabaan oo dhanka Europa League waxaana dad badan filayeen in Brighton, West Ham United iyo Liverpool ay wacdar ka dhigi doonaan dhanka Europa League waliba waxa aad loogu xilhayay kooxda Liverpool yeelkeeda Brighton waxa markii dambe haraga ka siibtay kooxda AS Roma halka West Ham United iyo Liverpool ay ku wada hareen rubuc dhamaadka Europa League sidoo kale hal naadi oo Ingiriis ah uma gudbin dhamaadka Champions League iyadoo Arsenal iyo Man City ay kala reebeen Bayern Munich iyo Real Madrid waxaana taa ka dhalatay in wiilasha Unai Emery ee Aston Villa ay noqdeen kooxda kaliya ee calanka Premier League ka walfinaysa Europe oo idil
taasina iminka qalqiil weyn ayay ku jirtaa oo dadka qaar ayaa mucjiso ku tilmaamay in ay gaaraan finalka Conference League markii kulankii hore ay 4-2 dirtay kooxda reer Greece ee Olympiacos. dabcanna haddii Aston Villa xitaa harto waa kooxda qura ee u faani karta dhammaanba kooxaha kale ee English Premier League oo tiyo uu yahay horyaalka ugu hodansan dhammaanba horyaalada kubadda cagta adduunka misna ku guul daraystay in hal kooxi ka joogto nusdhamaadka Champions League iyo Europa League markii ugu horeysay muddo 9 sanadood ah iyo dabcan sida dhici karta Conference League. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.